Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaasheeda qiimaha iyo qaayaha leh meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada habeen wanaagsan iyo cawaysan wanaagsan. Halkani waa TV-geeni AJ. Caawa bal waxaan doonaynaa faalleero gaaban aynu ku eegayno miisaaniyaddii qaranka Jamhuuriyadda Somalilan ee maanta la ansixiyey ee golahu gacantaagga uu ku ansixiyey halkaasoo ay diideen in ka yar 6 xildhibaan intii kalena ay u codeysay oo dhowr iyo konton ahaa. taasi waxay qaranka Jamhuuriyadda Somalilan ku yeelanaysaa saameyn maadaama ay ahaayeen xilligan miisaaniyaddii ugu horreysay ee ansixiyaan iyadoo loona saaray guddida dhaqaaluhu bal hadda inay eegto miisaaniyadda culayska saaran iyo qaabka yihiin laakiin golihii wakiilada ee xaqa u lahaa inay ka doodaan muddo ama dib u celiyaan ama wax ka bedelaan ama sideeda ku sii daayaan looma ogolaanin aragtidoodii sharci ee ahayd inay eegaan miisaaniyadda maxaa khalad ku ah maxaa sax ku ah waxaanay bilaabeen golahan cusubi sidii kuwii hore oo ahaa awrbaawrka hore ayuu socodkiisa leeyahay iyaguna mar labaad waxay noqdeen 2022 ansixiyayaal ansixiyayaashaasi dhibaato fara badan bay Somaliland ku hayeen muddadii 15 sannadood ee lasoo dhaafay waana wax laga dhaxlay baarlamaankii hore haddaba kuwa maanta oo dadku ay islahaayeen waxaa la keenay golaha wakiilada oo ah muraayadda laga daawado qaranka inay gaawahooda cushaan halkii garashadooda ay isticmaali lahaayeen taasina waa dhibaato kale oo mar labaad ku habsatay shacabka Somaliland iyagoo eedayo fartay ku codeeyeen xildhibaanadii aad ku doorateen qabiilku maanta qarankii miya wax idinka tareen weye taasina waa maya maanta waxay ansixiyeen golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland miisaaniyad ay ku jirto 8 milyan lacag ku dhow ama 7 milyan iyo 700,000 oo dollar oo TV-ga qaranka loogu talagalay taasaan innaba waxba dadka aanu ka soo noqon caafimaadka aanu ka hadlin waxbarashada aanu ka hadlin deegaanka aanu ka hadlin iyadoo 800 oo shaqaale inay ka shaqeeyeen halkaas haddaba su-aasha waxay tahay haddii lacagtaasi ay ku tahay qaranka dhiigbax iyo khasaare maxaa wasaaradda caafimaadka ama wasaaradda waxbarashada ama wasaaradda deegaanka loo geli waayo ama 800 maxaa qaranka loogu gelin waayey biodhamis maadaama xaalad abaareed ku jiraan waxaan kusoo gabagabanayaa barnaamijkaygan xildhibaano loo lolayo laanta ubaxu suuragal maaha inay qaranka u doodaan xildhibaan kasta waxaa loo sheegay waxa deegaankiisa ugu jira taasoo u muuqata mar labaad inay wakiil ka yihiin xukuumadda maalintaa joogta laakiin aanay wakiil ka ahayn dadkii soo doortay mar labaad iyo shacabku ma noqon doonaan qaar dib u qiimeeya waxay mar kasta ugu khasaaraan cidday soo doortaan sidaas iyo nabadgelyo anigoo ah Cabdisaaq Axmed Jaamac idinkaga tegay assalaamu calaykum waraxmatullaahi durka laga cabaa kiis lagu dabasha durka laga cabaa kiis lagu dabasha ahadu harka kareemo darkee laga warabta ahadu harka kareemo darkee laga warabta wasilmaan ladaho kuma haboone wasilmaan ladaho kuma haboone adoo degan u fiirso adoo degan u fiirso jeedada Where is the
في عذور تلايا